وعن wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo karaamada iyo sharafta mudan oo caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo xilli walba idin tahayba waqtiga ha idin wacnaado waayana ha idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leh maalin kale iyo muuqaal hor leh adbaad ugu maasantiin sida qiimaha badan iyo sharafta iyo dixgelinta iyo ciisada ay ku jirto iyo Soomaalinimada oo aad inoo garab taagantiin had iyo jeerna aad inoo muujisaan garab istaaga iyo qiimaha weyn ee xaqiina ka taagana way idinkaga mahad celinaya inta dib inooga soo biirtay aad bay u mahadsantahay inta hore inoola joogtay oo fadhiyeynta sariicaad ku dhawaanshiyaha channelkana leh aad baad u mahadsantiin inta soo socotana soo dhaweeya oo aad u gaarsiiya muuqaalka fiidiyoga la gareeyo sina share gareeyo asxaab badan oo u gaaroraan maanta muuqaalkani waxaan doonayaa in aan kala hadlo ama aan kaga hadlo walaasheen gabadheena majaajilisteena dumaashideen waxa waa inoo tahay waa Naciima Joker hada maxaan kaga hadlayaa musalsalaadkan dheeraaday ee Ramadaanka aan arki kareynaba inuu la sii gali doono lugaha oo ay u muuqatay inuusan ahayn mid si sahlan ku dami doono ayaa waxa aad moodaa habeenkii xala ahaa in ay Naciima Joker runtii ay gabar kamid ah dadkii markaas iyadana dagaalka baan kula jiray ama ay aadka isku hayeen inay xalay si live ah ama xagga live-ka ay ka wada heshiiyeen waana arin lagu farxo in aan u aragnaa mid iyadoo runtii ay u heshiinayaan waxaan rajaynayaa inta dhiman ama inta soo hartayna in ay hawshooda iska dhamaan doonto biidnillaahi alkariim qalbiyada ilaahay baa maamulo gacantiisa ay ku jirtaa bil aadam gacantiisa qalbigeena kuma jiro marka sidaas darteed waxaan rajaynayaa in aan wanaaga isla fahanno isla garano waxa aynu nahay in aynu nahay dad walaalo ah isku qalbi ah meel u wada socdo isjecel dad uun wada ah aan meel kala tagaynin inaan garano ayaan rajaynayaa waxaan doonayaa horta muuqaalkii ay isku heshiiyeen ama ay ku raali gelisay gabadha walaasheed ah iyo sida qiimaha badan ay gabadhaasina ay uga qaabishay ama ay uga aqbashay inaan marka hore ku soo wada nasano waan isku soo laaban doonaa sida ana qabiil u kala aqoon ayaan tuulooyinkan u kala aqoon waligay waa ku watay madaxa ii saaran tahay waa laga fiicnaa ana soo taagnado wax iga sheegi kara ana dhulka joogin iga sheegtay laakiin afwan qof aa wata tahay maxaa ka bedeli kara hadda waaba noqotay seeka yeelan raali noqo bis intaas ay badan raali wax gelo dhaafa ninkeyga codkiisana faraha ka qaad briskaaga ciideey la iska yeelo miyaataas sheeka Allah kala keenteen adigana inaan ku xanto marmar aan saas kaaga daba tuuro bahasha adigana odagayga codkiisa aan ku daayo dhilmo wallahi taas caadi waa wala isku qaadan karaa aw tiimkaaso warad ma shifin ka xishoodaya hadaan ruuxanta ilkacsatiin haddaba sida muuqaalka idinkaga muuqatay walaasheen Naciima Joker si qiimo badan ayay u raali gelisay isla hadal iyo isfaham dheer kadib laakiin waxaan doonayaa hal arin in aan horta iga jaahil saartaan tan waa aniga ayaa idinkaga baahan in aad idinka wax iiga sheegtaan Soomaaliyay horta qofka markuu dagaal galo wuxuu doono waxa ku galo xitaa ha noqdo qof xun haddii ka waran annaga dhan ah hal dhinac ka soo wada marna ama duulaanka aan ku badina maxay idin la tahay qofkaasi ma idin la tahay inuu dagaalkaasi ama markaasi duulaanka uu ku jiro ama waxyaabaha uu dagaalka ku galo jiro dadka inay soo gabagaboobayso ma moodaysin ma soo gabagaboobayso oo waxa aad dhici doonto inay dagaalka ku sii fogaato qofkaasi oo cidna aysan waxba u reebanin wax allaali wixii soo hadal qaadana markaasi ay la weerar tagto oo ay sida ay doonto ay markaasi ka samaysato haddii qalad lagu saxona lama kala roono qeer kama yimaado midaas oo kusoonaada sababtoo ah aniga maanta haddii aan hooyada caayo adna hooyada caydid dadka kama dhaadhicin karaysid in aan anigu nin xun ahay adawna qof wanaagsan aad tahay waayo ficilka markaas kala saarayay ama qof wanaagsan ka dhigay adigu waa diiday oo waxa doorashada bedelkeeda aad dooratay in aad muujisid inaad qof xun tahay sida aan anigu qof xun markaas aad iigu tilmaamaysay hada waxaan la yaabaa oo Soomaalida la yaab igu ah waxaad arkaysaa nin tuuga ayaa la qabanayaa xaq ka soo qaad waxa lagu qabanayaa degmo kamid ah wadankaaga waa meesha doonto ama Muqdisho tusaale ka soo qaadana degmo kamid ah Muqdisho ayaa lagu qabanayaa 18 kala degmo waa 18 degmo Muqdisho 17 kala degmo qof ka yimid ayaa wuxuu iska leeyahay wallahi tuugani hadda koor aniga ayuu wax iga xaday taasi waaba iska caado aan u leenahay qofka bil aadamka ay mala dhahayo muxuu orta ka sameeyay muxuu aniga iga sameeyay waxaan arinkaasi ku keenay maanta social media hadii aad furto inta ugu badan Naciima Joker dagaal ayaa lagu jiraa haddii aad taasi ka soo tagno
inta kale oo dhan daahir cali soo dagaal ayay kula jiraan haddii aad weydiiso qof kasta oo iyaga ka mid ah labadooda way ishayeen waa xaqiiq waa laba qof oo walaalo ah way isgaareen way isfahmi waayeen way dagaalameen anagu ma diidin inay dagaalamaan laakiin dadka inta soo markaasi dagaalka iyaga soo gasho labada dhinac ka soo kala safatay haday doonaan xitaa may ka soo kala safarna way iska soo safteen waxaad arkaysaa iyagoo runtii aytamayo waxaad arkaysaa iyagoo ku dhahayo hadda ka hor 2002 ayay cay ii geysatay hadda waa 2002 maxaa ka soo wareegtay war haye haddii kuu geysatay intaas oo dhan maxaad u aamusnayd oo aad uga soo falcelin weyday ilaa maanta 2002 maahana waa 10 sano ka hor 2000 waa 20 sano ka hore maxaa intaas u aamusnayd may waxaan raadinayo kaliya marka hore waa wanaagsan ama wanaagsaneen haddaba waxay ka dhaadhicinayaan marka hore inay wanaagsanaayeen oo ay sabrayeen haddaba haddii aad shalay sabraysay maanta oo ay dagaal ku jirto maxaa kugu soo kiciyay qofkaasi oo keenaya inaad caysid maxaa keenaya inaad sharafkiisa iyo cirdigiisa qofkaasi inaad meel kaga dhacdo maxaa keenaya maalintaasi oo ay qofkaasi oo ay jilicsan tahay oo laga yaabo inay dhowr weerar ku socdaan inaad adiguna dhinac kaga soo biirtid maxaa keenaya laba shayba waa keenaysaa mid waa daciifnimo ay naftaada qabto oo ay baqdin ka qabto midda labaadna waxa ay tahay in aad marka hore qof wanaagsan aadan ahayn oo cabsi aad u cabsanaysay laakiin mar walba waxaan idin sheegayaa qofka wanaagsan waa qofka wixii uu qaba isagoo awood leh hadalkayga si fiican u dhageysta qofka wanaagsan iyo ilaahay meesha xitaa sabarka u yaqaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sabarka u yaqaanaa qofka isagoo aarsan kara oo ka jaran kara qofkaani sabra oo aanan waxba dhihin oo aanan ka aarsanay caay iyo waxa ay noqotaba qofkaasi ayaa waxa la dhihi karaa wuu sabre laakiin qofka ay dantiisa ciisho oo dantiisa meel ay dhigto ma uu sabrine dantiisa ayaa meeshaasi dhigta haddii uu awood u leeyahay ama uu awoodi karo waxyaabo ka badan ayuu sameyn lahaa marka taasi yaanan qiil ka dhiganin annagoo danteena iyo tabarteena meel idin dhigtay in aan markii ay qofka bini'aadamka ee dagaal galaan in aad adiguna dhinac ka soo xagaxagatid waa daciifnimo horay kugu jirtay iyo kalsooni xumo aad naftaada ka qabtay anu waa inta aan qabo sida ay idinla tahay haddaba intaas oo dhan wax dhaamo ayaa jiro waxa dhaamo qofkii awoodi karo amaba heli karo in oo dagaalkan maanta baraha bulshada ka taagani ee markii horena bilowgiisa inooga soo bilowday dad lacag urursanaya iyo nooga soo bilowday hadii aad xasuusataan in dadka si fiican loo kala qaado in dagaalka meeshan hadda uu marayo inuu gaaro waxa sabab u ahaa dagaal live oo ka dhacay TikTok-gan tartanka TikTok laga galo ama live-ka TikTok lagu tartamo ayuu halkaas ayuu ka soo bilowday maalinta wixii ka dambeeyay waxa marba markii ka dambeysay si arkaynay iyagoo dadka ay kala fogaanayaan iyadoo qabaa'ilo la isku kala qaadayo iyadoo qabiilka kale dhinac ka soo caynayo iyadoo mansabkii iyo dadka sharaftoodii iyo Soomaalinimadii la baabainayo iyadoo ay dadka is caynayaan iyagoo aan isku aabayeelinin waalidiin qaar in lagu caayo baraha bulshada in dadka karaamadoodii iyo sharaftoodii iyo jiritaankoodii la wada baabiyo waxyaabo fara badan ayaan ku arkaynay social media oo aan ilaahay ka magan galayno in ay sii socdaan maadaama aan bil Ramadaan oo qurux badan aanu galayno waxa dhamaantiinba ilaahay inooga baridaan in ilaahay damiyo si qeyr qabana oo ku dhameeyo labada qof ee walaalahana ilaahay qalbiyadooda isku soo duwo maadaama bisha Shacbaan ay gabagaba ay tahay inay Ramadaanka iyagoo qalbiyadooda saafi isku yahay inay inoo bilato biidnillaahi alkariim waxa ay kula tahay hal iyo laba waad nala wadaagi doontaa inta muuqaalkani mid xiga aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillah